duuba baltay cadaanta ayla gacmaha naga cadaanta ognayo baanay waanu cadaanay kulanti wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa Alpha Media Group daawadayaal waxaan leeyahay barnaamijkan ku eegi doona fanaaniinta Soomaalida ah oo rag ah ee iscadeeyay dabcan dumar dhaxna inaan ku wareerina ila tahay lama soo koobi karo marka barnaamijkan waxa soo codsaday qaar kamid ah asxaabteena nagu xiran Alpha Media Group ku xiran oo qaybta commentiga ku soo codsaday oo yiri ka soo hadla fanaaniinta iscadeeyay ee rag ah وكما سنتين داو يال قاركين سو عدسدي قاركين nagu xiranba qaarka kale ee hadda nagu cusubna waxaan leeyahay si aad noo socotaan subscribe saarta channelkan oo like saara calaamada gambeelkan furta si fiidiyoosha ku ugu dambeeyay idin soo gaaraan haddii aan barnaamijka hore u sii galno waxaan jecelnahay inaan wax yar daawataan horta fiidiyowga la ilaaha illa cadaanay بود سبع عدان عادي بلطي صاروا عدان ور بلطي عدان هاي لا قامها نقد عدان فوقنا يوبانا وانا عدان صوتوا انا بنسجرن اني مسجرن وايب اسمه اقام عدان هذا ما كان داوده وابن كهلي هوغا يوباي وابا waxaan wax kala weeyo baalkan yaa naga فنانكان أركيسان دهاي أنا واسك هلي وأنا عدانتي ذا كهلي وفنانك لو يقانو عبد الأنتو عبد النور نهاي طبعا وضعذ أوجب ودغن أوجب نرق وصومالي وإسلام وهدنا ديانو مرسناي وإسعديناي طبعا سيدا عادي صومالي دو يتقانو أما سبادون كدن بكشرتا دمر كويس دلاليان ويس قرحيان ما هو وحل ولا إن دمر دلاليان أما يكو اسكهلان أما إس قرحيان وانا wax la wada og yahay adduunka in dawal ka jirto laakiin rag ah ee iscadeey hadana dhahay ana iska helayo cadaanteeda aniga ka helay oo wax la yaabo dabcan laakiin intaan barnaamij guud galin oo aanan falanqeynta guud galin waxa la daawatiin asaga horta yaa macallin oo barnaamijka ugu horeeyay wax yar waa iska soo laabo doonaa fiirsha fiidiyoga وأصل لابدونا معلن كيس عدة برتي يضيع دل نرشبة أن بدرت أن ويرى أجنو عبد الأنتو وايهيسي عبد الأنتو وصبر خد أدوش الدين والله كنت ماشي أنتي ما أهان وقت فك أما وقت دار ما أهان وهذه أفر سنة مسدح سنة كسور بتروح لمده مركو الرئيسي برنامجيدان أو صوق علي فنكا wuxuu qofan taageero qof aad u jecelahay fankiisa qof Soomaaliyeed dhan wada jeceshahay aan ma heesi jirin dabcan laakiin wuxuu ahaa qof dhaantada ama dhaqanka Soomaalida dhaantada ciyaara oo bilow ku ah markaas una ekay qof mustaqbal qurxan leh ani markii ugu horeysay aan ka shakiyay Cabdi Dhaanto aan la yaabay wuxuu ahaa fiidiyooda inta doono oo la fadhiyo atooraha badda Cismaan yar la yiraahdo oo ah ليل عنك أتورا بدل لهذا يوتيوبر واي أن ويرس كلا فوتة إيو برامجية أو فيلمات هندي أما كلا أو سنسماية أو ريتير ريال أو سماية فيديو ولا فضية وح أولي هاي يقاب فعل كيس يدقن كيس رقاق كيس بالأوفر صد مركان والله وقت ما شنتي فيديو كان نعم كان فنان نصيحة فناوين واي أو قطر أو شو يو مالك استغلالي قانون تأذيرياشي سنة وسلامة أصحاب الفيسبوك هنا إنه سلام ورجال أنت يا أصحاب الفيسبوك أطورا بدا سبحان الله حلقة قبلي بالله شحاري وأوجدي لك رالا واسل هنا حفظ واسل رالا هذا أصحاب أوجدي هذا نجي سلام جعلي أنا وايد جعلنا كل جن سلام من أصحاب الفيسبوك وكم وسلام من فرين انتهى المحابس الساعة لا لا يا أنا سأقول جبني سهل إلى أخوي راتب كاميرا وانا هذا سانت ملا عمل يا
أنا ما بقى أنا ولي أيوة السلام أصحابته إيدك سبحان أيوة السلام أصحابتي لما هو سلامي وكما تستين أصحابتي فرنسية وما تستين هادية وما تستين مع السلامة أنتوا هذا الموسيقى وقراءة وما تستين أنتوا مشكلة الموسيقى أنتوا هذا الموسيقى كل وما تستين طبعا أنتوا فرنسية أصحابتي هذا وجعلاي أبيني مالن وايد جعلاي وايد سلامنا باي فيديوغان haddii aad daawatay waxaad ugu dhex jeedaa Cabdi Dhaanto oo atooruhu uu leeyahay dadka la hadal oo salaan ka bacdina uu jabinayo nin rag ah niman rag ku daawanaya rag kula joogo rag ku fiirnayo rag iyo dumar bale asxaab badan oo Facebook-iga salaan buu leeyahay ka bacdina uu jabinaya dabcan waa ganacsi horta markaas aan ka niyad jabaan aniga fanaankan waxa igu xigtay oo markii labaad aan arko aan dhaqankiisa ka shakiyay igu xigtay markan oo sawirka hadda aad u jeedaan oo soo galay sida caadada Soomaalida lagu yaqaano tinta waa la shanleystaa waa la quruxsadaa qofku qaabku rabo u jirto laakiin waa la quruxsadaa tinta laakiin wali ma inaan arkin anaku haddaan Soomaalinahay nin rag ah ee timaha dabanaya sawirkan sida walax jeedin tinta ayuu dabtay waliba qayb u dabaysay dumarkii haddana sawir buu soo galay asaga social media soo dhigay ma aan sawir lagu xadaan wax lagu gaaday aan wax filim ku jiray xataa ma aha wuxuu u qasday oo uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga Soomaalida aad u falcelisay waa la yaabtay waxa markaas la isdhahay dhaqankan ninkan ka haro wax fiican ma la tusinayo hase ahaatee way oo sii dartay oo wuxuu gaaray heer oo Soomaalida ku xanaaqo haddana markii uu cadeeyay oo diyaarada marsaday dadkii waa la yaabeen waxay dhahan Cabdi Dhaanto san kuma aqoon Soomaali baa tahay waxaan dhaqan islaam ma ahan dhaqan Soomaalina ma ahan iska dhaaf waxa ku soo xigtay inuu ku xanaaqo oo dadkii waayinay inta live soo galo oo ku caayo oo ku xanaaqo oo uu yiraahdo horumarkayga ka xuntihiin oo gaala cadaan la tartama waxaan la tartama kuwa kastumada wata waxaan la tartama Kirishtaanka asoo dhahaya video-ga marti la daawada asna nimankan cadaanka iyo maxaa Kirist balaay iyo nimankaas gaala qaawanta oo kastumada wata nimankaas tartanka Soomaaliya gilla waana ka badin lahaa laakiin aniga Ilaahay Soomaali uu iga beeray dadku Ilaahay iga beeray wadadooda xaasida wadadooda cuqdadaysan waa dad aan hal qof horumarkooda ogolayn dad si kala weeyaan ma garanaysaa asaga markaan halkaas oo gudubno waxa taa su'aasha la isweydiinaa horta asaga yaa is cadeynta baray yaa macallin u ah yaa uga horeeyay dabcan fanaaniin badan way jiraan laakiin asaga waxa saaxiib qaas u ah fanaanka aad wada taqaaniin dayax dal nuurshe wuxuu ahaa asna fanaan 2014 ku soo biiray fanka oo yacni isku waqti camal fan ku soo biireen wala oo wax yar horeeyay fanaanka loo yaqaan dayax dal nuurshe wuxuu ahaa nin cod qurxan leh hibo faneed leh taageero fiican leh wali heestiis ugu horeeyay oo soo qaado iyo ku soo caanbax ma dhacdo fanaaniinta inta badan heest ugu horeysa laga wada helo qaar baa dhowr sano ku jira ka bacdi caanbaxaan dayaxdan hees ugu soo horeysay ku soo caanbax waana cod Ilaahay siiyay iyo haybad oo lahaay oo fanka u lahaay ayaan ka bacdi fankiisa iska sii watay heeso kala qurux badan buu soo qaaday fanaan caata ah oo madow oo dabcan maarin xataa lama dhigi karin qof caadi madow buu ahay madow nin raw caab ma ahan asagoo fankiisa ku sii gudu jira ayuu wuxuu galay aroos xaas buu aroosay aniga xaaskiisa aad baan ugu faraxsanahay qoyskiisa iyo carruurtiisa ma sha Allah aad baan u taageeraa qoyskiisa iyo ma sha Allah laakiin waxaan ka hadlayaa waxa waaye yani dhaqankiisa asaga hab dhaqanki ninkii heybadaas lahaay fool xumo lagu nicmeyn caata lagu nicmeyn oo nin rag ah waaye nin ragan dabcan qurux lagu matalagelin asagoo noocaas ah ayuu xaas yeeshay xaaski markuu yeeshay ka bacdi oo dabcan noocaas mustaqbal ku tabcaday asagoo xaaskii le ayaan mar qora waxaan aragnay ninkii madoobayo carab ah wax la yaabo yaab iyo amakaag nagu beertay noqotay asagoo madow aan ogeyn asagoo cadaan ah oo carabta ka cad baan aragnay hal mar markii la isweydiiyey dabcan waxa la asaga jooskiisa waay kama oo saharine heerkii wasii wato mar ka dambaysa ayuu ku sii dhaqmaayo si cadeynayo si wallow isafankiisa wax u dhibin haddana raganimadiisa quruxdiisa iyo mustaqbalkiisa ayuu wax u dhibtay wuxuu reebay taariikh lama ilaawaan ah oo aan weligiis ka hareen taasoo ah
inuu ahay fanaanka ugu horreeyay reer muqdisho ay iscadeeyay hadallada halhayska ee dadku had u qabsanayaan waxaa ka mid ah qofkaas wuxuu ku beeray day arkaan qof iscadeeyay wuxuu ku beeray tiim dayax qof iscadeeyo kala dil arko waxa leeyahay dayaxtan wuxuu ku daysaday hada waxa arkaa ciyaalka xaafadda dhahay maalin dhowed inta dayax ku mashquulsaneen ayu cabdilaatan naga fakaday alaan hadda gaabnida madowga ma aha wax la isku caayo mana aan wax heer lagu gaari waayo haddana tusaale soo qaato kale laacibka loo yaqaano Lionel Messi waa nin gaaban rag kubadda ula dheelo wuxuu ku jiraa ragga ugu gaagaaban curyaan buu ahaa jiro nin lagu ka go'an qoys faqiir oo ka dhashay saasay tahay waa laacibka hadda adduunka ugu caansan niyadiisa ma uusan gelin waa gaaban tahay iyo intaan la eg tahay iyo raggaan lama dheli kartid oo heer buu ku gaaray kalsoonida naftuna waa waxaan la heli karin dabcan cabdidhaantoo kale hadda ma aha nin jaahilnima u geysa dhihi mayno sababtoo ah waa nin jaamici ilaa heer jaamacad gaaray oo wax bartay ma aqoon karna marka sababta ku kaliftay inuu iscadeeyo isagoo og dhibaatada ay leedahay saamaynta ay ku yeelanayso hadda boqolkiiba 90 Soomaalida reer Muqdisho waxa arkay uu ku sheekaysanaya marka meherada meel la isugu yimaado ragga kafeteeriyada la isugu yimaado oo lagu maadeysana waxa leeyahay ninkii iscadeeyay waa kana ninkii la soo dhaweey jiray oo la dhigi jiray waa kana inta imaa uu kaalayo xafladaha noo amir oo la dhigi jiray hadda waxa arkaysa asagii iyo la kala sikanayo leeyahay balaayo iscadeeyay waa marka saaxiibayaal fanaaniintu way badan yihiin fanaaniin badan oo iscadeeyay jirto ma ahan dayax iyo cabdiraanta bis mana aan nimankan aan ugu nacay laakiin waxaan ka hadlaa barnaamijkooda iscadeynta bis oo mawduucana ku saabsanay fanaaniin badan baa jira fadlan daawayaal dabcan intiina hore soo xusatay barnaamijkan waa ku maasantihiin intiina kale ayakuna dayan inay wax codsadaan waad soo codsan kartiin fanaaniintu way badan yihiin dabcan fanaaniinta iscadeeyay anaku ma wada koobi karno laakiin waxaan rabnaa idinka inaad soo kala dooratiin oo dhahdeen fanaaniin bir soo hadal iyo fanaaniinta iscadeeyay barnaamijkan Facebook waa ka sameey karnaa dabcan daa idinku soo codsataan oo idinku maasantihiin daawashadiina fadlan channelka subscribe saara like saara calaamada gambeelka ahna furta team alpha waa maasantihiin